وإذا كسر ضاعني وحي هيد مرحرة إن نعزله وهالكن تمادان أو عن واحد فرنه أو عن ذلك دارنه محيي ومدى الصومالي سيد كريه وحلو قد بين كره ودغن كنا وحسها يجوا ولبا خاصة وقت هذا أن كجرنه ولو باهي ذاتك إلا كعيه ولا أبابله أو ست توصة وحلو شيءه أو لقى الله ودنيا دوحي تاعي حقيقة كنتي كواحد هرسات هوشي الذين حل ساري إن تصف عن وقت صباحدين وحنس آدي أجعل لها إن هسوه بطان أو ملها أدجين إنسان هسها إنسان نقول مركو كوبانه أتكتان ملها فرنتيانا ملها إذا ما دو الجوجان دجموينك يقبل هذا كله أدجارسيسان meel kasta oo umada Soomaaliya isku soo baxayso oo aad heesahaas quruxda badan aad ka qaadaan aad ku soo jiidataan shacabka marka qulubtoodana aad ku heshaan maxaa yeelay hadii dagaal hadii lagu jiro waxa kaliya dadka lagu kicin karo oo lagu abaabuli karo waa heesaha wadaniyada ah runtii shaqo fiican waa qabateen waxaan jeclaan lahaa heesaha wadaniyada ah hal la xoojiyo heesaha shakhsiga lagu amaanay iska dhaafa shakhsiyan la amaanin shakhsigu waxa way wuxuu wax ku yahay dalku wax ku yahay dalka amaana waligiin qof shakhsi ah amaanna dalka amaana wadaniyada xoojiya dawladnimada amaana iyada naftigeeda maxay dawladnimadu shakhsi ma aha dawladnimadu waa shacabka Soomaaliyeed oo dhan way dadka oo dhan baa iska leh dawladda annaga waan loo dhiibtay waxaan haynaynaa waxa weeye muddo yar oo kooban marka annaga amaan uma baahnin waxa la rabaa in la amaano dawladnimada waxa la rabaa in la amaano wadajirka Soomaaliyeed waxa la rabaa in la amaano qabka Soomaaliyeed iyo sidii ahaan jireen awooyaashin sidii ahaan jireen maaha 30 sano oo aan kufnay maaha dad baa waxay aaminsan yihiin inaan jabnay ma jabin 30 sano waa yara tronay هذا الواقعنا إن شاء الله runtii doorka aad qaadateen xoojiya hadaad sheegtaan wax dadka kicin kara moralkooda iyo niyadooda iyo caadifadooda kicin kara hadii aad sameysaan haday noqoto tixda gabayga iyo haday tahay laxanka iyo muusiga la socda dadku dhagahooda waadi furayeen hadda kooxda hiddo waxaan leeyahay dhalinyaro firfircoon weeye iyo ciyaartooydooda fanka waa ku cusubtihiin laakiin waxaad leedihiin mustaqbal wanaagsan aad leedihiin codkiina aad iyo aad u wanaagsan yahay muusiga iyo laxankiina aad u wanaagsan yahay waxaad ku dartaan xoogaa dadaal badan ilaahay idinkiis waxaa noo balana in aan u shaqeyno dalkan kulligeen in aad ku fikirtaan mar walbaba maskaxdiina aad gelisaan in wax la curiyo in dadka sidii lagu kicin lahaa la curiyo muusiga quruxda badan sidii loo saari lahaa annaga se waxaa naga balana oo dadaalkeena qaybteena lagu soo aadaya inaan idin keenno qalabkii aad u baahneedeen maxaan ku yiraahdaa ka warqabkii ladinka warqabay ظروفها adag aad hadda ku shaqeynaysaan inaan ilgaaro ku fiirino oo aan idinku dhiiri galino in inta aad sameyseen hadaad ku sameyseen xaalad aad ku jirtaan waxaan qiyaasayaa hadii la idin dhiiri galiyo oo baahidiina iyo duruufihiina meel la saaro inaad abuureysaan waxa aad sameyseen wax 10 jeer ka wanaagsan haduu Ilaahay yiraahdo hadda waxaan keenay 2 macallin oo musiga bara waxaan soo gadnay qalab gaaray ilaa 300 oo xabo oo kala duwan oo nooc walba leh waxaan ku talagalnay ama aan qorsheenaynaa 200 oo arday inay ka soo baxdo 2 sano gudaheeda tiyaatarkii waa dhamaanaya dhismihiisa meelo badan aan sii dhisno oo ku horumarinayno hidaheena iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo fanka haduu Ilaahay yiraahdo inay noo soo bixi doonaan musicians
dad tuma instrumentiga kala duwan idinkuna dee aad haysaan maxaan ku raahdaa curuntii gabayada iyo geeraarada iyo sidii loo saaro hadda muusiga maxaan ku raahdaa heesaha hadduu la yiraahdo dhalinyarada hadda wax baranaysa oo muusiga baranaysana insha Allah muddo 2 sano gudahooda ay ku bartaan sida ugu fiican oo muusiga loo tumo oo waliba standardka caalamka hadduu ay yiraahdeen waxaan rajeynayaa guul sanad cusub sanad wanaagsan inuu noo noqdo sanadkan sanad khayr qaba oo maxaan ku nabad noo keena iyo horumar insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.